Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Waxaan doonayaa inaan halkan aan idinka sheego labada qodob ee Xasan Sheekh uu u yimid Somaliland ee Laascaanood. Labadii waxaan u maleynayaa inuu mid ku guuleystay mid kaana waxa uu suurtageliyay dadkeena. Labadaa qodob waxay ahaayeen mid in uu dadka Somaliland jooga ay gadoodaan ay xanaaqaan oo ay cagta mariyaan wax alla wixii Laascaanood jooga. Dadku taa waynu ku fahnay oo dadkii aad baan ugu mahadnaqayaa dagaal kumaynu qaadin Laascaanood. taa horta kuma guuleysanin. ta aan isleeyahay uu ku guuleystay waxay ahayd ma ogtay guuldaradii ka raacday maalmahan ictiraafkii Somaliland ayuu doonayay siduu magaciisa kor u soo qaado oo looga hadlo social media oo dhan iyo newsyada oo dhan laga hadla Xasan Sheekh waa yimid Somaliland. tiina inaga u fudaydinay wata Ameerika simka lagaga hadlayo leeyahay Xasan anigana xitaa dhaho Xasan Sheekh waa yimid Somaliland. marka wuxuu doonayaa inuu iska maydho ceebtii raacday si uu isaga dhigo dadku waa Soomaaliya jooga inuu wax sameeyey uu leeyahay Laascaanood baan tegey. waxaan kale doonayaa inaan halkan uga jawaabo nin aan halkaa ka arkayay oo dhulbaanta ah oo yidhi niman yahow Isaaq wuxuu yidhi waan markhaati baan idinka furnay inaad tihiin gob inaad tihiin laakiin anigu wuxuu yidhi waan doonaynaa inaan goonee na sii daaya. ninkii waxaan ku leeyahay doonaya inuu xamar qabto ciidamo haysato haddaad doonayso adigu inaad u guurtid xamar oo hawiyo ku gumaystaan waad qaban kartaa laakiin dhulkuma guuro. dhulkiinu waxa weeyaan Somaliland dhul baahanta badan oo aad u sharaf badan waa naqaanaa oo doonaya inay waddankooda deganaadaan. adigu ninkii doonaya inaad qabato xagga Muqdisho waad tegi kartaa laakiin waddankuma guuro. wassalaamu calaykum. subscribe ولن سلام يا كل كان قول وناكسن السلام عليكم. إذا كصومال الشرف بدنا عظمنا السلام يا مدحونا عيرنا عظمنا السلام يا والسلام عليكم.